mahadsantiin maadaama aad nagu dhiirigelinaysaan tabinta macluumaadyada qarsoon ee caalamka. qaybtan waxaynu ku falanqaynaynaa macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan go'aanka madaxweyne Vladimir Putin la sheegay inuu doonayo inuu Shiinaha ku kala qaybiyo sidee reer galbeedka iskugu dayaan inay labadan dawladood oo saaxiibada dhow ah ee isaga hor keenaan warbaahinta reer galbeedka iyo qaabka ay wax u buunbuuninayaan iyo macluumaadyo kale iyo warbixinada uu qoray filosoofka la sheegay inuu yahay la taliyaha madaxweyne Vladimir Putin ayaan eegaynaa. ku soo dhawo mar kale Marcadda Show anigoo Maxamed Ciise Marcadda ayaa kula socodsiinaya. sidoo kale dhanka Facebook ayaa saaxiib nagula noqon kartaa Marcadda Show aad baad u mahadsan tahay. waxaynu ku hormaraynaa ninka lagu magacaabo Alexander Dugin oo aan warbixino dhowr ah ku soo qaadanay toddobaadkan maadaama buwaagtii uu qoray xogo badan laga helayo ayaa waxaa la sheegaa in uu si weyn saaxiib dhow u leeyahay madaxweyne Vladimir Putin. buugga uu qoray wuxuu ugu magac daray mustaqbalka juqraafi siyaasadeed ee dowladda Ruushka. nuqullo ku qoran buuggaasi waxaa ka mid ah in Ruushka waajib ay ku tahay in hadda uu kala qaybiyo Shiinaha ka hor inta Shiinuhu aysan qabsan Siberia iyo sidoo kale Kazakhstan. ninkan wuxuu aaminsan yahay in Shiinaha mar uun gaar ahaan markay awoodda hogaaminta caalamka ay kala wareegaan Mareykanka inay u soo jeesan doonaan inay qabsadaan Siberia iyo Kazakhstan. dhulkan oo sida la sheegay la tuhunsan yahay inuu ka buuxo khayraad iyo shidaal aad u tiro badan islamarkaana warshadaha Shiinaha ay si aad ay ugu baahan yihiin. sidoo kale la taliyaha madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin islamarkaana buwaagtiisa lagu dhigo macaahidda ciidamada Ruushka wuxuu aaminsan yahay in Shiinaha uu yahay cadowga labaad ee Ruushka marka Mareykanka laga yimaado laakiin isku dan ay yihiin haddana mararka qaarkii. haddaba sida ayuu Shiinuhu u noqday cadowga Ruushka iyadoo oo la wada og yahay inay xulafo aad isugu dhow yihiin maantadan la joogo. ninkan buugga qoray waxa uu leeyahay hadafka Shiinaha ee mustaqbalka fog wuxuu yahay inay qabsadaan gobolka Siberia iyo deegaano kale oo Ruushka ka tirsan oo ay ka buuxaan macaadin aad u tiro badan gaas iyo kheyraad kale oo aad u fara badan laakiin way adkaan doontaa in Siberia Ruushka laga qabsado sababta Ruushka hadda isaga ayaa doonaya meelo dalkiisa ka baxsan inuu gacanta ku dhigo. sidoo kale wuxuu qabaa in Shiinaha qorshihiisa uu yahay in halkaas ay u diraan ilaa iyo 10 milyan oo Shiinees ah markii ay qabsadaan si ay isugu fidiyaan guud ahaan dhanka ee dalka Ruushka. aragtidan waxaa qaba ninka buugga qoray Alexander Dugin la yiraahdo oo la taliyaha madaxweyne Vladimir Putin ah. sidoo kale wuxuu qabaa in Shiinaha uu doonayo inuu isku ballaaray Aasiyada dhexe gaar ahaan dowladaha Kazakhstan iyo Tajikistan la yiraahdo. sidaas daraadeedna wuxuu qoraalka buuggiisa kula talinayaa maamulka Putin inuu qaado tallaabo lagu kala qaybinayo Shiinaha ka hor inta uusan fulin qorshahaas aan kor ku soo sheegnay oo qoraagu uu aaminsan yahay. meel kale qoraagu wuxuu buuggiisa uu ku leeyahay suuragal ma ahan in Shiinaha uu naga doorto Mareykanka maxaa yeelay Mareykanka ayaa naga dhaqaale badan sidoo kalena suuq ahaan waxa u fiican suuqyada dalka Mareykanka. haddaba tallaabooyinka ama talooyinka uu soo jeediyay qoraagan oo ay qaadatay kuna dhaqatay xukuumadda Putin ayaa qorshaha uu Ruushka uu doonayo waxay tahay inuu ku kala qaybiyo Shiinaha waxaana uu yahay sida tan. tallaabada ugu horeysa waxay noqon doontaa in Ruushka uu qabsado dowladaha ku hareeraysan Shiinaha sida Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Nepal iyo Mongolia. kadibna markuu intaas soo xaqiijiyo tallaabada xigta waxay noqon karaysaa waa sida la saadaalinayo in si toos ah loo kala qaybiyo Shiinaha iyada oo la hubeynaya qaar badan oo kamid ah mucaaradka ku kacsan dowladda Shiinaha iyo sidoo kale dowladda madax bannaan oo Ruushka uu aqoonsanayo gobollo muddo dheer doonaya in ay ka go'aan Shiinaha intiisa kale. warbixintan waxaa si aad u bumbuuninaya warbaahinta reer galbeedka kuwaas oo xitaa doonaya in dhinaca kale Shiinaha iyo Ruushka ay iska tusiyaan sababtoo ah buugga ninkan mar hore ayuu qoray hadda ayaa xogta bannaanka la keenaya laakiin waxaan rabaa inaad sida ay wax u jiraan aan kula wadaagay sida wax u dhici karayaan go'aanka adiga ayaa iskale. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov wuxuu aaminsan yahay inay jirto khatar halis badan oo dhalin karta dagaalka saddexaad ee dunida kadib duulaankii Ruushka ee dalka Ukraine. Lavrov waraysi uu siiyay telefishinka Ruushka laga leeyahay wuxuu ku eedeeyay wadamada isbahaysiga gaashaanbuurta NATO inay sare u sii qaadeen dagaalka Ukraine iyaga oo bixinaya hub iyo agab dagaal. sida laga soo xigtay wasiirka oo talaabadan waxa uu ku tilmaamay inay sii hurinayso xaaladda walaacsan ee iminka jirta. wuxuuna ku adkaysanayaa in wax walba la sameeyo si looga fogaado inuu dhaco dagaalka saddexaad ee dunida. Master Lavrov ayaa wax laga weydiiyay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kaas oo ah in laga fogaado colaadda nuclear-ka. waxa uu sheegay marka in dagaalka saddexaad ee dunida uu yahay mid aad u sareeya sida laga soo xigtay qoraal uu ku qoray bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushkana khatartaas wuxuu ku sheegay inay tahay mid halis ah oo dhab ah waana mid aan la dhayalsan karin sidoo hadalka u dhigay.
marka aan eegno marka sida ay wax u dhacayaan halista jirta iyo digniinaha ay soo saarayaan guud ahaan wadamada reer galbeedka waxa ay tahay in ay doonayaan inay ka hortagaan dagaalka saddexaad ee dunida haddana waxay doonayaan inay sameeyaan wax walba oo ruushka ugu yaraan carqalad gelin karaya warbaahinta reer galbeedka hadda marka waxay leedahay waxaa la joogaa wakhtigii ruushka uu weerari lahaa ama ugu yaraan uu iska difaaci lahaa saamaynta shiinaha ee dhanka gobolka shiinaha oo hadda la ogyahay inay saaxiibo dhow ay yihiin laakiin mar walba maanka ku hay way dhici karaysaa saaxiibada maanta inay noqdaan cadowga koowaad ee berito maadaama dowlado badan hadda tusaale ahaan aynu soo qaadan karno oo saaxiibo dhow ah haddana aad u kala fog sidee ayaad u aragtaa xogta buugaagta ninkani uu qoray ku qoran ee ah in shiinaha mustaqbalka uu doonayo ruushka inuu soo weeraro haddii awoodda dunida uu la wareego inkastoo ruushka shiinaha iyo maraykankaba awoodda dunida ay isku hayaan dhinaca kale aynu eegno marka madaxweynaha dalka maraykanka Joe Biden wuxuu xaqiijiyey in iskoorimaad toosa oo dhex mara gaashaanbuurta NATO iyo ruushka uu ka dhalan doono dagaalka saddexaad ee dunida waxaan doonayaa inaan caddayno waxaan ilaalin doonaa gobol kasta oo NATO ah in uu lahaado awood buuxda oo isku dhafan oo lagu xaqiijin kara ammaankooda ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden dhinaca kale wasiirka ingiriiska u qaabilsan ciidamada qalabka sida ayaa dhankiisa hadalkan wuxuu u arkaa waa hadalka wasiirka ruushka ka soo yeeraya inuu yahay propaganda oo kaliya saraakiil ka tirsan dowladda Britain ayaa shaaca ka qaadaya in mar walba dagaalka saddexaad ee dunida iyo isu adeegsada hubka nuclearka in dowladda ruushka afka ay ku qabataa kaliya propaganda uu yahay sidaas oo ay tahay marka maraykanka jarmalka australia iyo netherland waxay ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan inay hub ay u diraan dowladda Ukraine si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka duulaanka ruushka gaashaanbuurta NATO marka waxay bilowday in ay ciidamo ay u dirto bariga qaaradda Yurub si ay si degdeg ah jawaab ay uga bixiyaan halis kasta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay ballan qaaday inay u dirayso Ukraine hub qiimihiisu uu gaaraya $350 milyan oo ay ku jiraan gantaalada Javelin-ka loo yaqaano ee gantaalada lidka diyaaradaha iyo jaakadaha aanu xabada karin dowladda Britain waxa kale oo ay sheegtay in aysan sax ahayn in dagaalka Ukraine lagu tilmaamo mid NATO ay kula jirta Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba dhankiisa wuxuu sheegay hadalka Lavrov inuu yahay isku day Ruushka uu ku doonayo in uu caalamka ugu baaqo in gabi ahaanba aanay taageerin ciidamada dowladda Ukraine waa sida uu aaminsan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ukraine sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno waxaan ku soo gabagabeynaynaa arrimaha Soomaaliya xog aan helna ayaa shaaca ka qaadaysa in doorashadii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo ay ku tartamayeen 10 musharax in ay abuureen isbahaysiyo siyaasadeed oo cusub doorashadan ayaa wareegii koowaad waxaa ugu codbatay 4 musharax oo codadka u kala helay sidan maxamed wili cabdalle axmed 59 cod ayuu helay waa xildhibaan ku cusub baarlamaanka islamarkaana ku fadhiya kursigii cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo loo diiday inuu u dhoofo magaalada Baraawe ee deegaan doorashadiisa taageerana ka helaya nabad iyo nolol qofka labaad wuxuu ahaa maxamed cali cumar caaninu 58 cod ayuu helay wuxuu ka soo galay maamul goboleedka Jubbaland waxa uu taageero ka helay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Siciid Dani taageeradaas waxay ku dhisneed heshiis hoosaad u dhaxeeyay sida la sheegay labada maamul oo kala ahaa in Puntland ay qaadatay gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo in Jubbaland ay heshay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka qofka saddexaad waa xildhibaan Sacdiye Yaasin Xaaji Samatar oo 52 cod wareegga koowaad heshay waxa deegaan doorashadeedu ay tahay Puntland waxayna si lama filaan isugu soo sharaxday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sida la sheegay waxa ay meel ku dhac ku noqonaysay heshiiskii dhexmaray ee Puntland iyo Jubbaland wuxuuna ka hor imaanayay dalabkii Siciid Dani uu hordhigay oo ahayd in gabi ahaanba aysan is sharaxin khadiijo maxamed diiriye 22 cod ayay heshay waxay dhisaysay sida la sheegay kudlo uu hogaaminaya aadan saransoor waxayna ka goosatay nabad iyo nolol sida xogtaan ku helayno waxaa dhacday marka in maxamed wili cabdalle axmed oo ku horeeyay codadka ugu badan ee xildhibaanada si lama filaan ah inuu ugu tanaasulay Sacdiye isaga oo dhabar jibin sameynaya Dani oo diiday marka siday wax u socdeen xadgudubna ku ah heshiiskii siyaasadeed ee Puntland iyo Jubbaland ayaa xiriir la sameeyay Khadiija Maxamed Diiriye isagoo dhaqaale badan u ballan qaaday si codadkeeda ay ugu tanaasusho Caananuug oo Jubbaland ka socday iyadana way aqbashay dalabkii oo goobta ayaba ka cadeysay in Caananuug ay u weecdeen marka waxa lagu waramayaa taasi in ay horseeday in dhabarka jibin ay dhinacii nabad in nolol ay sameeyaan oo ay la saftaan dhanka iyo himilo qaran
halkaas fursad weyn ayay ka heshay ama ay ka heleen xildhibaanadii taageerayey musharaxa dhanka villa soomaaliya ka socday waxaana la sheegay fursaddaasi qaaligiiyagu ka faa'iidaysanaya inay dhanka kale wax u weeciyeen oo ay sacdiye yaasiin ay taageereen oo ka socotay xisbiga u b d ee xasan sheekh maxamuud sidaas daraaddeed marka halkaas dagaal adag ayaa ka dhacay waxaana mar kale fursaddii ku waayay siciid dani oo doonaya in xubin ka tirsan jubbaland oo ku soo baxo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya marka waxaa la rumaysan yahay halkaasi dagaal siyaasadeed aad u adag inuu ka bilowday hadda maadaama golihii shacabka iyo golihii aqalka sare guddoonadoodii la doortay doorashada madaxweyneha ayaa la arki doona